haddii rabto gurigaadana iska sii gado 2026ka fadlan indhageyso dadka badan lacagta loos gareeyay marwalba gurigooda iska sii gadaya lacagta loos gareeyay kuma loos gareenin market marka aan ku jirno waxa ku loos gareeyeen uma CTR Group haddana ku cusubtaa magaca waxa la yiraahdaa daahir waxa la shaqeeyaa kamid loo yaqaan saxan realty bana soro dad badan oo home owner ah aan la shaqeeyay gurigooda iska sii gaday cilada ugu weyn dad kuwa lacagta helay oo lacag badan u sameeyay gurigooda iyo kuwa lacagta u sameeyay farqi u dhaxeeya mostly waa in uu CTR Group kuwa qaar waxa even loos gareeyeen $10,000 $20,000 loos gareeyeen so haddii aan wada shaqeynaa adiga the first thing aan sameynaa ka bilaawayna ku sheegaya waa wax loo yaqaan preparation strategy aan ku siinaya oo ah the first step waxa noqonaysa wax loo yaqaan pricing-ka is a strategy waaye ma aha number so the first mistake dadka qaar is weydiinaya waxa tahay gurigayga suuqa masuuqa jooga su'aasha is weydiisama waa qaldan su'aashaasi the real question is weydiisay noqonaysa waxa gurigaada sidaan u price gareyn karnaa aniga adiga wada shaqeyno si u soo jiito the right buyer-ka saxda ah gurigaadan oo u sameeyno inuu guri comparative noqdo oo la isku dilo and then guriga lacag saagu sameeyso gurigaada hataa price gareyso oo laakiin lacagti aad cirka geliso another 50,000 60,000 oo suuq joogna geliso gurigaada suuq ku dahaya haduu suuq ku dahana cilad badan ay ku noqonaysaa dhibaato ku noqonaysaa so waxa muhiim ah marka gurigaada price gareyno waxyaalaha ugu muhiimsan ah not only marka price ka waxa ka dhigay intentional or based on the timing marka aan ku jirno timing-ka waa timing-ka adoo ku shaqeynayo sumida haday rabto within 2 months suuq uga baxo waxa kale ku xiranta condition-ka guriga ku sugan yahay iyo buy demand marka aan ku jirno number 2 waxa face gareynaa wax loo yaqaano big value killers waxyaalaashan qiimaha guriga qiimihiisa hoos u dhigay waxyaalaas wax kamid ah roof issues roofka duu wax ka qaldan yihiin oo kale hadii guriga biyo soo galeen oo kale haduu any electric problem uu jiro ama wax loo yaqaano HVAC problems inuu jiro so waxyaalaashan home inspection-ka way imaanayaan so hadaad inaad qaras isku daydo qofka home inspection guriga ma siisanaya oo arkay cilada waxa ka baxayaan guriga so guriga laga ma iibsanayo number 3 wax loo yaqaano waa preparation and presentation so gurigaadana si diyaarsan noqonaysa so marka si diyaarinaysa guriga qofka guriga ka iibsanaya ma aha inuu square footage ka iibsanayo kaliya gurigaadu sida uu qofka soo galo uu dareemayo ayaa muhiim ah so taas waxa kamid ah gurigaada hadii alaab ka buuxdo kale like generally waxa kula taliya gurigaada ina alaabtaas storage geliso 30 to 50% alaabta ku taalo ina storage geliso guriga inta la list gareyn ka hor guriga aad clean gareyso nadiifiso sababta dadkii waxa la rabaa emotional ahaan inuu u soo jiito guriga hadii dadka ka helaan then waxa helaysa an offer or strong helaysa step 4 waxa fix gareynaa wax loo yaqaano high ROI updates gurigaada full renovation kuma sameynaysid waxyaalaha dadka qaar lacag badan iska galiyaan waliba meel qaldan ay galiyaan taa ma sameynayno so kaliya waxaan ku sameynaa renovation waxyaalaha basic ugu muhiimsan oo adiga lacag kaaga soo laabanayso for example gurigaada painting oo ka bedelaynaa lighting fiican gelinayna lightka madmadow yahay oo bedelaynaa waxa loo yaqaan carb appeal oo sameynayna oo ah guriga hortiisa baxay waxba ku beeraysa hadii jiraan wax loo yaqaano minor cosmetics hadii jiraan guriga daldalool waxa sidoo leeyahay waa upgrade gareynaa waxyaalahan waxa ku ogolaanayaan wax loo yaqaano the ROI-ga ama return on investment lacagta ka gashay lacag badan ay kaaga soo laabato especially hadaa ka bedesho within I'll say 60 days or I'll say 1 month and a half ka hor hadaa ka sii bedesho intaan guriga list gareyn ka hor step 5 waa launch this is badana meesha lacagta ka sameynayso number 1 meesha strategy ka caawinayna exactly what the first one waxaan ku sameynaynaa guriga waxa ka qaadana professional photos ka qaadana sawiro walan oo inaba caadi ma ka qaadana number 2 waxaan ku sameynaa xolo yaqaan strategic pricing oo ah based on the market demand marka aan ku jirno oo ah waxaan ku sameynaa xolo yaqaan CMA comparative market analysis oo ah noo ogolaanaysa guriga qiimaha saxda suuqa ka joogo aan suuqa galno si markii laga iibsado oo guriga suuqa ka dahay number 3 guriga waxaan ku list gareynaa wax loo yaqaan MLS multiple listing services so guriga markaan ku list gareeyo MLS guriga waxa laga arki doonaa Zillow realtor.com homes.com Trulia waxa soo laga arki doonaa number 4 waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaan guriga digital marketing oo ah waxaan gareyn doonaa wax loo yaqaan Facebook ads xayisiina TikTok ads waxaan gelin doonaa oo kala isticmaali doonaa wax loo yaqaan search engine optimization oo loo yaqaan SEO as always la socotaan marwalba the first dadka showing-ka online dadka ka helaan waxa kale oo sameyn doonaa wax loo yaqaan strategic open house kasi dadkina imaadaan gurigaada ka helaan so waxa dhici doona wax loo yaqaan high visibility hadii dhacdo dad badan ay arkaan gurigaada moshowna helaysa moshowna daashana waa strong offers helaysa oo offer lagu soo diraya hadii gurigaada iska sii gadayso 2026 ama time ina time gareysa rabto guriga iska gado mid kala iibsato at the same time that's exactly dadka waxa sameeyna fadlan waxa sameeysa dadka waxa sida ugu fiican sameyn karta ina u sii diyaar garoodo so the only way ku sii diyaar garoodo waxa noqonaysa waa inaan naga bugareysataa consultation strategy halkan hoos waxay ku soo qortaa consultation waxaan ku soo diray calendarkayga si aan kula fadhiisto exactly this game plan ka hadaan ka hadlay aan ku siiyo hadii kala taas dhici waaso meesha lacag kaga tagi doontaa at least dadka waxay ku meesha kaga tagaan $10,000 to $20,000 that's literally lacagti guriga kale aad down payment u dhigay closing cost ka bixin lahayd noqonaysa taa sameynin in consultation codso hoos waxay ku soo qortaa consultation dan waxaan ku soo diray calendarkayga dan office-kayga ugu iimaanaysa insha Allah. It's a good thing. Assalamu alaikum.